السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آديات بعدو مهاسنتهين دمانتين وحان عاو إذا كسو دوين يا سعب فرن قلب سن ينيت سافية عاو آد بانو فرح سنة هاي هبينكو هبين ذاك لواكدوين يا هاي مدل وحان جوغا دادك وقرح ذا بدن اي فديا اي هبليهين صعب كيني ما مقلو واي هاي waxaad caawa marti u tihiin oo halkan idinku soo casuumay oo dhammaantiin aad waqtigiina u soo hurteen shirkadda cusub ee caawa aad magaceeda si buuxda uga dhargi doontaan shaqadu ma cusba laakiin magacaa la ballaariyey oo la weyneeyey oo shaqadii baa sii badatay magacu waa Amana Real Estate Group. magacu maxaan yidhi waa Amana waxaad u dhiibato waad ku aamini kartaa meel wanaagsan bay ku geynayaan guri qurxoon bay ku dejinayaan kambani cusub bay ku iibinayaan dhul aad ka ganacsataad ka helaysaa haddii lagu yidhi kreditkaagu wuxuu yahay iyagu waxaas ma yaqaanaan qof kasta hadduu kreditku ka buko waa loo bogsiinaya caawayaan idii wadaa mar kale aan ku celiyo Amana Real Estate Group waxaa kambanigan dhirinaya oo qurxinaya gabdhaha caqligooda iyo maskaxdoodu ay badiba Soomaalida dhaaftay oo cadaankii xataa ay ka tagtay wiil kale oo isna cajiib ah gabdhaha la jooga dib aan idinka bari doonaa laakiin intaana idin bari magacyadooda aan idin kala sheego markaad maqashiin sacabka adinka ayaan idinka rabaa inaad ku dhufataan aan ku bilaabe gabadha state-kan oo dhan faraha looga gubtay marka ay timaado dhinaca finance-ga waa tuma waa إيمان عثمان إيو قبلنا كله إيادنا لنا عقوريينتا مورجيتها واتما وسهام محمود قبلها وحى أجو ويل حوجن أو قلت إيش أساس وفيريا هراتك غانا وكما وأنا كوميرشال كان نيكا قابلسن وصاحبك سبرية ورسم صدق ذولا مذوبي مقعيدي كلا قدسنا ويسكو كانين وحانا كسو بحدي أمانة Real Estate Group ويا وحالي يلي وحان بسنك الوقبا بركة مالي barnaamijkeena caawa intaas waa hordhici waxaanu ku furanaynaa ayadaha quraanka kariimka ah qowlkeeda waxaad ila soo dhaweysaan wadaad da'ya Ayuub Cusmaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جزاك الله ما شاء الله صدق الله العظيم كبني يوال حجابي آية كرسي بالغو أخريي شرقدبن يا سلام وايهاي أيوب عثمان آدي أدبو مهاسن يهاي عاوة waxaa goobta inagula sugan
fanaaniintii Soomaaliyeed oo heesa macaan idii qaadi doona yaa caawa nala jooga ma garanaysaa Hiba Nuura hadda heesi mayso Cadar Axmed Kaahinna heesi mayso laakiin waa fanaaniinteeni laakiin kuwa caawa heesayaan idin sheegayaa Deeqa Axmed Xandulle oo haddana si kale haddii loo yidhaahdo waa Deeqa Axmed Agayd وايه waxaana la joogta fanaanadii faraha loo gubtay reer Minnesota farxiyo kala yare waxa kaloo nala jooga fanaan cod halalaasiya leh laakiin reekoraadku marka magaciisa ay sheegayaan waxay dhahaan Cabdullaahi Baajiyo laakiin waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Baajiyo gabadha Vatican caawa dhan idinku haysay DJ Hosea caawa saxabka DJ-ga maxaa marka la ku celiyaa saxabkaasi waa caato waxaana la jooga oo music noo kala rogrogaysa oo noo kala bedelaysa gabadhaasi quruxda badan ee daada yar duuban allah wow Hosea aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana barnaamijkeennii baan gudagelaynaa hadalba maxaan idinku daarinayaa hadalka ugu horeeya waxaan siinayaa wiilkii aan idiin sheegay ee Sabriye wasal ila soo dhaway Sabriye waxaan dikraad dilayga nagu dhacay marka hawshan haddaan bilaabanayna labada gabdhood si hama idin diibaa sihaam intuu soo dhiibin anaa soo dhex galaya Sabriye gabdhihii xataa markuu soo watay wali waa qalqalsan yahay anaa magaciisa ku hadlaya waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbisan iyo niyad saafiya aw saxabkii Sabriye waxa uu idinkaga mahad waxa uu ka xun yahay in barnaamijku uu dib u dhacay sababtuna wax kale ma ahan adinkaas oo daaday ساسمو إيجار هلا هذا إنه هذا هو أتكلمنا واي هذانا وحنكون رجينا يا إيمان يوسيهان وعاوة قطبة عجيبة وأف صومالي في إنجليز إسكودرسن بارك لك كده بدون صوروا السلام عليكم horta waa mahadsantiin inaan noo imaanteen maanta but energy got a little bit marka la qala when you're clapping it's very low I think you can do better than that lakini we're going to watch a video explaining what amana sorry they had that qasinade markii nagu dhaw qacma not now and we're going to watch a video explaining what amana is about and intentions together and who we are and marka aada u maasantiin inaan horta noo imaateen marabi inaan warka dhadhaadheereeyo Deeqa Axmed aan rabaa inaan ku nikiyo salaam calaykum net assortment marka wax isu jirto on the taxes meelaha kaleeto other companies markay u tagaan usually where they don't qualify on paper in cities area I specialize in residential and commercial real estate waxaa nala joogta fanaanada majaajilaystaha ah waayahana sheeqada caafimaadka isku bedeshay Cadar Axmed Kaahin DJ-ga heesoo naftayga qaaday hadda waxaan jeclahay inaan u yeero fanaanada Cadar Axmed Kaahin oo hadal dhiirigelina goobta ka soo jeedinaysa Cadar si fiican layla soo dhaweeyo هالله صعبيو ولي ما دليل هذا وصول دو سعودية ده كما كما أي يا عدم أها يا سلام على رحمة جاي والله
waxaanu ahaan jiray fanaaniintii hore laakiin culimada maanta noonay hadda kowdhe marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan gabdha yaryar oo Soomaaliyeed oo real estate aan la kulmo waxaan arki jiray oday guryagadaya waagi hore arki jiray midda kale waxay tiri abaayo aboowe guriga naga gata naama gataan dee aboowayaasha iyo habaryaraha gataana oo kala gadana guryaha markaa Siham iyo Iimaan aad baan ugu faraxsanahay inaad darajada gaadhaan anigu waliba gabdhahan aad u jecelahay anigu ragga halkan kama sheeg wax badan aan soo kala dhex galay aniga ragga inkastoo wiilal badan dhalay haddana gabdhahan jecelahay oo la jira had iyo jeer waan ku faraxsanahay inaad heerkaa gaadhaan gabdhaha guryaha ka gata waliba gabdhahaynu garanayno guryaha dooqeena iyaga garanayee gabdhaha guryaha laga gato aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin thank you so much inaad gabdha gurya gada aanu helay oo nala garanaya dooqa iyaga marka soo dhawaadaan leeyahay gabdhaha iyaga guryahana ha laga gato waxaa kaloo idiin sheegayaa ninkan waryaha ee cajiibka ee balaayada wararka anu igu bartay qofkii ugu horreysay uu waraystay anay ahayd saada waryaa markaasaan oran jiray waryaa ay weydiina su-aalaha hadda bas waaye maanta atooraa la yahay عادل أحمد كاهن الله صاحبي هذه ما صدق ورنتد قفك يقول رأي أن تي في كور يستيحيد نيكي يقول رأي وكامل يدوبنا نيكا واي عطدا دوبنا أرتيل تاجن سياد سعيد صالح وحنا للجوجة نلي هذا بلقاس هستا رده صاحب أنا كجعل صح درتا عاشق لا هيكح قديم مرصاص أدوك ديت كفح نيك هستا سمينا وكنا الله صاحبي بالغاس وحنا للجوجة قبلها قرية قدان وهو نين بدر قدان بدر وحسين وهو عمبولو دقير قلي صور فلفلير يفوض أبس إسكفوق ما فريس من الجريرة ألعبتها سنين قدام جوجا عندي صومالي وأركو بيزنس لنا تاجر وصاحبك عبد الرحمن عيسى كاهن يلسو نوية كاهن وهذا الكوبان هل كان كسو جيدينية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta caawa aad iyo aad baan u faraxsanahay in gabdho dhalinyaro ah oo maad aragtay awal waxaan ogeyn kaarmeel bay businesska dumarku ku badnaa iyo 24kiyo waxaan aan ku faraxsanahay maanta in gabdho professional ah oo businesskii Soomaalida ka dhigay mainstream amba levelkii ugu fiicnaa gaarsiiyey inaan horta caawa ka hadlo layma soo sheegin anoo iska cashanaya bay gaaday laakiinse sharaf bay tahay inaan u hambaleeyo gabdhahaasi iyo wiilkaasi maxaa yeelay anigu dhowr iyo 10 sano business ku jiraa markasta waxaan la dhiggelin jiray dad maxaan faraajinabiya oo been ku sheegaya oo aaminsanayn waxa ay ka iibinayaan laakiinse waxa inoo soo baxay dad dhalinyaro ah oo fahmaya businesskeena mainstreamka si aan uga baxno moolasha aan ku dhex jirno waa in aan la shaqeyno oo iyaguna ay noo dadaalaan oo ay noo soo helaan businesskeenu meelaha uu ku fiican yahay ee uu ku horumari karo ee mainstreamka waan u duceynayaa businesskiina waxaan igula talinayaa inuu sadaqada badsado uu community-ga ku soo celiyo faa'iidadeeda assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan isdhahay hal hees oo Jabuutiyaana ku sii tuuraya maxaa dhacay deeqa joogtay الله صاحبي عبد الرحمن عيسى كاهن برنامجك waa soo gabagabaynayaa gabdhahan hadal badan ma rabaan abaayo waxay dhahay caaw qoobka ciyaar rabnaa inaan sameeyno waxaan la jooga dad aad u fara badan oo Amana Real Estate Group ay guryo u iibiyeen oo waliba aan hal ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn
dadkaas qaar ka mida ayaan iyagana rabaa su-aalo inaan weydiiyo. la soo dhaweeyaa labadan hooyo Soomaaliyeed ee guri ayagu ay leeyihiin maanta ku nool. waxaan u yeerayaa Ubax Maxamuud صاحبكي waxaan kaloo u yeerayaa Fardowso. Snapchat-kan markuu imaado waxaan ku nacay adinka ma ismi fiirinaysiin ya hada idila socda xaaladiina. waxaan ku hormarayaa Ubax. soo dhow Ubax, bal gabdhahan businesskooda intaadan u tagin ka hor ma jirtaa meel kale oo waqtiga kaa soo lumay? aad iyo aad in badan aan u tagay real estate, balse awlaadooda kuma soo qancin. waxaan ku qancay Amana Estate. Amana marka waxyaabaha ay ka caawiyeen oo adiga sida weyn ku soo jiitay maxaa ka mid ah? waxay iga caawiyeen financial iga caawiyeen, waxay ila raadiyeen guri meesha aan jeclay, position aan jeclaa ah oo aad iyo aad aan ugu qanacsan oo ii cajabiyay. marka soo dhaweyn aan aqalganayn ayaan ka helay. haye maxaa dhacay saaxiibkiina ma maqlo? aad baa u mahadsantahay Fardowso, aan soo dhaweynayaa iyadana. Fardowso, bal adiguna gabdhahan iyo sida ay ku caawiyeen adan nooga warto. bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan horta u salaamayaa, waan ku faraxsanahay programkan iyo shirkaddan cusub ay walaalday furteen. si fiican bay noo soo dhaweeyeen. waxyaalo badan oo dadka aan inoo sheegin bay noo sheegeen. inaan creditka iska soo dhisno, inaan incomeka iska soo dhisno, inaan markii dambe iska soo dhisno, inaan kor yani waxyaalo badan nala qabteen. way nagu caawiyeen, way noo sheegeen markaan hagaajinayna inay maaragtay abruufkiina siiyaan. marka alxamdulilah rabbil caalamiin wax badan bay noo caawiyeen. gurigiina la raadisiisaan, ilmaan abruufadkay siisay. aad bay u mahadsan yihiin dhammaantood. waa tahay dadkan markana daawanaya oo meesha fadhiyo nasooyiga abaartimentooyinka qaarkood ay degan yihiin maxaa ku dhahay? waxaan leeyahay intaad ku degantihiin guriga hadday noqoto maxay kirada guriga hadday tahay shaneer haddaad tahay laftigiisa ikama hadday tahay intaad gurigaaga ku bixin lahayd ayaad ku bixinaysaa shaneerka amba babla housingka amba kirada. markaa fursadaadaad ka faa'iidaysan kartid. aad buu fiican. waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ha loo sacbiyo hooyooyinka Soomaaliyeed. aniga sacabkan caawa inaa gacnihiina isku dhufta ahaysa aniga inta soo qabto. ma tacsiimaa joogtaan kaalay adinka bas meel baashaalo xafladaa joogtaan ya sacab qurux badan loogu dhufta Amana Real Estate Group. ya salaam aad baa u mahadsantihiin. waa idinka keensaday xoog alaabtaas. sida ay gabdhuhu u sheegeen waxaa laydinka rabaa inaad dadkiina Soomaaliyeed ee ganacsiga leh aad caawisaan, taageertaan. qof kasta oo Soomaaliya ganacsi leh, ka sambuuska gada, ka guriga gada, ka caafimaadka gada, midka ilkaha sameeya, kan lugaha jaban, ka caloosha ayaantaan mataqaanaa habeeya oo alaabta ka dhuuqaaya, dhammaantood meeshaan kula kulmacaawa ayagana meeshay joogaan. looyarada, ciyaalka oo xabsiyada gal, dadkaasoo inaad taageertiin aa laydinka rabaa. balanteenu waa maxay? inaan taageerno businesska. balanteenu maxaa waay? inaan taageerno. balanteenu maxaa waaye? inaan taageerno. Ammaanaa rabaa, ma maqlo warkaas. balanteenu maxaa waaye? balanteenu maxaa waaye? war codkiina maxaa dadkan tacsiimaa laga casuumi jiray maxaa waaye? waa dharkiin miya? shukaansiya bilaabeen miya? taleefon ay gadaal ka qoranooyaan. haddaan idiin bilaabaynaa marka sheekadii taleefonka iyo baashaalka. fanaanintii ayaan idiin hayaa. waxaa jirta ma maqasheen hees jacayl oo gabar loo qaado qoortaadan dheer la dhahay lagu qoray sax noocaas camala. caawa Amana Group heesaa loo soo qaaday. adinka waxaad taqaan hees jacayl oo gabar lagu soo jiito ma maqlaay maxaa jira meeshaan? abaa gabadha dheer istaagan fariiso horta. midda timaha dheerna fariiso adigana ya. heestan waa hees aan jacayl ahayn, waa hees ganacsi ah oo ganacsi lagu soo jiidanaayo. waa hees iimaan iyo sihaam shaqadooda, howlkarnimadooda, dadnimadooda, wanaagooda, fiicnaantooda, caqligooda iyo xigmadooda, ganacsigooda ka sheekaynaysa.
soomaalidu taclintiyo utaagsada aqoontiyo waxa aad taqaaniin utaagsada aqoontiyo waxa aad taqaaniin Tubteni sankiyo tobiya adne tubteni sankiyo tobiya adne imaniyo sigam talikshin manisota tagani kaale qalbi igu dhaado qorshe toosan ila dheeho u dhan ku horayaaye qofna ha igu masalin kaale qalbi igu dhaado qorshe toosan ila dheeho u dhan ku horayaaye qofna ha igu masalin qaayihiisa dareenka qof u helan adaa ah qaayihiisa dareenka qof u helan adaa ah qodob fiicana sheege qorshehen mahalaabo qaayihiisa dareenka qof u helan adaa ah qaayihiisa dareenka qof u helan adaa ah qodob fiicana sheege qorshehen mahalaabo markaa tahay ruuxu daneeya wanaagga inuu u doodo dulmiga qaar baad jeclaada xumaha kula daba wareega markaa tahay ruuxu daneeya wanaagga inuu u doodo dulmiga qaar baad jeclaada xumaha kula daba wareega dantaada haddaad ka raacdo oo aad dow kale u baydho inbaa doqon kugu tilmaama dareema lahayn shaqeeya